Asalaamu calaykum, kusoo dhawow channelka BU. Maanta barnaamijkeenu waxa uu ku saabsanaan doonaa Today and Technology. Dunidii talawada halkay tiigsanaysiyo tilmaan koobi mayse in waliba itaalkii technology ku saami. Tiknoolajiyadu waa gobasha aqoonta, xirfadaha, waayo-aragnimada iyo farsamooyinka ay dadku ku bedelaan una adeegsadaan deegaankeena si ay u abuuraan qalab iyo mashiino wax soo saara iyo adeegyo buuxiya baahiyadeena iyo rabitaankeena. Tiknoolajiyadu waxa ay noqon kartaa baalasha u ogolaan doonta adduunka waxbarasho inuu sii fogaado tan hadda lagu jiro. Tiknoolajiyadu waxay leedahay saameyn ballaaran oo ka caawisay horumarinta dhaqaale horumarsan. Cusboonaysiinta ayaa had iyo jeer saameyn ku leh nidaamka bulsho, waxayna soo bandhigtay su'aalo cusub oo ku saabsan anshaxa tiknoolajiyada. Tusaalooyinka ayaa waxaa ka mid ah kor u kaca fikradaha wax ku oolnimada marka la eego wax soo saarka aadamaha iyo caqabadaha cilmiga noolaha. Dhammaan walxaha inagu hareeraysan nolol maalmeedkeenu waa alaabooyin ka mid ah horumarka tiknoolajiyadeed ee kala duwan oo kaasoo soo baxay qarniyadii jiritaankeena. Waxaynu bedelnaa kheyraad dabiici ah si aynu samayno aalado iyo mashiino nolosheena ka dhigaya kuwo aad u fudud oo ku qanciya xiisaha aan u qabno rabitaankeena sare. Tiknoolajiyadu ereyga technology waxa uu ka yimid laba erey oo Greek ah, techno oo macnaheedu yahay farshaxan ama farsamo, iyo logy oo macnaheedu yahay barasho. Markii ugu horeysay waxaa loo isticmaali jiray in lagu sharaxo farshaxanka la adeegsaday, laakiinse hadda waxaa loo isticmaalaa in lagu sharaxo horumarka iyo isbeddelka saameeyay deegaanka inagu hareeraysan. Tiknoolajiyadu kaliya saqaf ma aha, balse waxa ay siin kartaa bartayaasha cod laga yaabo in aysan hore u lahayn. Waxa ay noqotay wax la yaab leh oo cad in tiknoolajiyadeenu dhaaftay dadnimadeena. Kaliya markii ay qaldamaan mashiinadu waxay ku xasuusinayaan sida ay u awood badan yihiin. Tiknoolajiyad kasta oo horumarsanna waa mid aan laga sooci karin sixirka. Maantana barnaamijkeenu halkaas inoogu eegyahay. Waad ku mahadsantahay daawashada barnaamijka.